Assalaamu calaykum kasoo dhawaada mar kale ayaa Noora Cooking maanta waxaan sameynayaa bariis iyo chicken la isku kariyay la isku dubay yar oo caadi ahaynin marka waxaan ku sameynayaa hadda arkeena waxaan ka sameeyay chicken kana aan ka sameeyay waxa waaye chicken ka canjarka chicken thighs kan wuu maxaa la dhahaa canjarka laga soo gooyay wuu ka cadiin badan yahay wuu ka dhadhan fiican yahay marka cadiinta iyo balqaha zaa'idkan ka gooynaya si uu bariisku u noqonin saliid socoto dufan miiran ah waa lagu laqanyooda dufanka badan marka waxaan rabaa inaan ka kala yareeyo oo ka trim gareeyo fatka dhan chickenka shafka chicken flayga ama chicken breastiga wuu qalalaa kana ka macaan markii bariis lagu karinayo hadda chef waa isticmaal kartaa laakiin kana ka fiican oo dhadhan leh hadda waxaan sameynaa waxyaabo ku qasilay rosemary oo kii ku daray hadana thyme yaraan ku darayaa adiga waxa jeceshaa isticmaal kartaa kabsar caleen riixaan toon whatever aad jeceshaa isticmaali kartaa kaasna waxa waaye riixaan qalalan parsley iyo waxaan kaloo ku darayaa maxaa la dhahaa paprika yar ku daray waa barbarooni gaduud la soo shiiday aan ku darayaa xoogaa oo badneenin adiga teaspoon ama teaspoonka barkeed meeshan waxba lama duubaayo marka iska qiyaasaso oregano kii ugu wacdid kaasoo waxa ku darayaa qalalan asigana dried iyo waxa ku dalayaa basal iyo toon qalalan hadaa rabta ayagoo fresh waa ku darsan kartaa waa shiidan kartaa aniga kuwaana isticmaalayaa dhadhanka kale waa isku midkii marka wax yar ku darayaa ayagana aan badneenin qiyaas yar adig iska qiyaasiso waxaan kaloo ku darayaa fajita hadii maraq digaag ka jecesha ku darso waa isku mid kale iyo wax yar aan kaga darayaa oo badneenin iyo waxaan kaloo ku darayaa mustard dash uu fiican yahay malaha maxaa la cusbo iyo waxaas malaha hadaa rabto maraq digaag waa iska dhaaf kartaa cusbo iyo kan baa ku darsan kartaa dhadhankiisana kala arag waaye maxaa kale oo ku darayaa vinegarka hilibka wuu jilcinayaa dhanaan fiican uu yeelayaa vinegarka qalna waa la dhaaf Soomaali wax yar ku darayaa adiga hal qaado camal oo badneen kan badinaya just hal qaado way ku filan tahay waxa ku darayaa saliid zeytuunka olive oil oo badneen wax yar adiga ilaa iyo 4 qaado 3 qaado waa ku dari kartaa hadaa rabtid aniga hadii inta aan ku daray waxaan oo dhan 3 jibaarkeed 2 jibaarkeed sameysan kartaa waxaan kaloo ku hoolayaa liinta qolofkeeda kore lemon zest wax yar oo badneenin qaybta cadna ina iska ilaalisid waaye kaas way qaraartahay cusbo yar ku daray hadda wixii oo dhan shiidaya ilaa isku shiidmaan waa kaas waxa ku darayaa chickenka ku kor darayaa digaagi marination ku sameeyaa rabaa oo dhigo adiga hadda doorkana qasaya insha Allah beriyaan isticmaalayaa waxa fiican inay dhudda iyo dhuuxa ka gasho wixii ku xeesay isla markii hadii ku xeesid yani ma dhaxgalayso dhadhankiisa uu macaan yahay chickenka haduu chicken uu iska noqonayaa fahantsamaha alright meelaan la dhigayaa firinjeerkan gelinayaa waxa dhan dhudda ka gasho wixii ka sameeyaan ku ahdaay ku dardaraya dhan waa kaasa magacyaashooda iyo suuqa meel walba lagu gadaa marka sawirkooda waa kaasa hadda waxaan sameynayaa liin soo googooyay labada dhinac ka gaduudinaya liinta saan marka la yar macaan kaligeeda cuni kartaa waxay noqonayaan liin qajaar camal marka hadda waan jarjarayaa liinta dhan
markii aan jarjaro adiga xoogaa ka jarjaray intaas camal basal yarna waan jarjarayaa iyadana sidii sambuuska camal aan u jarjaray next day waaye maalintii kale waaye chickenkii waa kana asigiyo hadee alaabta dhan ay ku dhex milantay hadda waa shiilayaa saliida xoogaa waa ka badiyay maxaa yeelay digsiga hadhow chickenka wuu ku dhagayaa dhab uu dhahayaa marka xoogaa saliidaas waa ka daadinayaa markii aan labada dhinac uga gaduudiyo labada dhinac ka gaduudinayaa hadda chickenka marka uu gaduuto waa ka bixinayaa saxan kale kor saaranayaa marka saliidan waxaan rabaa inaan ka daadiyo oo wax yar aan ka soo reebo si aan bariiska iyo waxa kale aan ugu dalacdo hadda waxaan ku darayaa basashiya ku daray hadda waxaan kaloo ku darayaa liintii iyo bay leaf aan ku daray waxaa kaloo ku darayaa tuna ku darayaa oo badneena wax yar hal xabo tuna iyo waxaa kaloo ku darayaa oregano ku darayaa wax yar asagana iyo waxaa kaloo ku darayaa reexaan yar ku darayaa oo ayadana qalalan wax yar ah waxaa kaloo ku darayaa fajita maraq digaaga ku dari kartaa maraq digaag xawaaji buubuur adi waxaa jeceshaa bariiskii oo soo dhaqay waaye hal koob oo bariis waaye iyo waxa ku daray wax yar oo kabsar caleen ah hal koob oo bariis bis waaye iyo 4 cad oo chickenka canjirkiisa ah 2 koob oo biyo ku darayaa hadda biyo ma aha maraqa chickenka laga bixiyo maraqa maalin karsatid biyihiisa meel lagu shubtaa maraqa waxaa la geliyaa freezerka la gashtaa si uu kugu qalal maalinta u baahtada la soo baxsada la isticmaalaa marka biyo kuma dalin maraq waaye basala korka uga daray hadda marka waxaan sameynayaa hadda daboolkan u dheereenayaa ovenkan gelinayaa adiga 350 waa kaasaa 35 daqiiqo kadib diyaar waaye uu ka soo dhacay 350 oo Fahrenheit iyo 180 oo Celsius ah uu ku bislaaday bariiskii iyo digaaga iyo bariiska markii aan gelinayay ovenka biyaha maysan ka hoos marin bariiska isla markii aan biyeeyay oo digaagana aan kor saaray hoos aan geliyay 35 daqiiqo aan u qabtay wixii oo dhan way ku bislaadeen haddaan dhadhaminayaa sidoo ku soo baxay cusbadiisa iyo wax walba caadi maaha insha Allah haddii aad ka heshay thumbs up si haddii anagu cusub tahay subscribe garee sida aad u aragtid waxyaabaha kale soo wada assalaamu calaykum